khabiir dhanka psychology-ga ku takhasusay oo la yiraahdo Alexander Shaqoof ayaa suxufiyiinta u sheegay astaamaha lagu garto ninka fashilka ah ee aan doonaynin inuu naftiisa bedelo. Waxa uu tilmaamay in 10kii ninba 6 ka mid ah nolosha ay ku fashilmeen. Shaqoof waxa uu yiri ugu horreyn raggu waxay ku nool yihiin riyooyin mustaqbal ah oo waaweyn oo ay naftooda u dejiyaan, waxayna ku riyoodaan inay hantiilayaal noqdaan oo ay nolosha ku guuleystaan. Tallaabadooda mustaqbalka ayaa si joogto ah uga sheekeeyaan marka ay dadka kale ka daalaan dhageysiga riyooyinka aan rumoobayn. Waxay isku dayaan inay raadiyaan wax kale oo ay dadka u sheegaan oo ay ku sii madadaaliyaan. Astaanta labaad, ragga fashilka ah waxay galaan mashaariic waali ah oo aan si mug leh looga fekerin. Ma jecla inay isbedelaan, waxay aaminsan yihiin waxyaabo bilaash ah inay meel cidla ah ka helaan oo nasiibka ayay ku tiirsan yihiin. Waqtiga ay haystaan iyo awoodda ay leeyihiin kama mira dhaliyaan. Wax walba dib ayay u dhigtaan oo waqti kale ayay isku haleeyaan. Inuu raaxaysto oo uu madadaalo helo ayaana hortabintiisa koowaad u ah, halka shaqada uu mar walba dib u dhigto. Mashaakilka ku hareersan ayay mar walba eedeeyaan, lamaanahooda ayay dhaliilaan, cimilada ayay wax ka sheegaan oo ay ku eedeeyaan sababta lacag la'aanta ka dambeysa. Astaanta ugu dambeysa ay leeyihiin ragga fashilmay waa inay wax walba ay yaqaanaan, sidaa daraaddeed sabab ay wax u bartaan ma jirto oo ay naftooda u horumariyaan, halka ay fuliyo yihiin oo aanay awoodin inay yiraahdaan waxaas ma naqaano. Khabiirkan waxa uu aaminsan yahay inay adag tahay isla markaana ay mustaxiil tahay in ragga fashilmay la bedelo. In yar oo ragga ka mid ah ayaa ku guuleystay inay noloshooda wax ka bedelaan, laakiin waxay isbedelaan marka albaab kasta uu ka soo xirmo oo wax walba ay waayaan. Waa sida uu sheegay oo uu qoray website-ka Danny Rowe. Waxa uu khabiirkan hadalkiisa ku soo gabagabeeyay xitaa lamaanihiisu uma suurtagal ah inay caawiso noloshiisa ay wax ka bedesho, qof kalena iska badaa. Hanad Ali Guleed.